waayeel waxgarad mas'uuliyiin iyo xildhibaan Mahdi Shire oo ka mid ah xubnaha golaha deegaanka degmada Cerigabo oo warbaahinta kula hadlay magaalada Cerigabo ayaa sheegay in bariga degmada Cerigabo ay gaadheen biyo dhaamiskii xukuumaddu ka bilowday gobolka waxaana ay sheegeen in maamulka dawladda hoose ay si wanaagsan u maamuleen qaybinta biyahaasi degmada waxaa soo gaadhay lacag $167,000 ah waxaa lahaa degma Cerigabo iyo Ceelaf Weyn iyo Garadag baa lacagta kala lahaa lacagtii ay yeelatay degma Cerigabo iyo booyadihii tiradii biyaha ahaa ee halkan insha Allah degmada ka baxay 400 oo booyadood bay noqdeen 130 sidii hore baan media uga sheegnay 130 booyadood habshiil baa bixiyay 270 booyadoodna 270 booyadoodna waxa bixiyay maxaan ku gudoomiyaha gudida abaaraha oo madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland biyahaas degmada ayay ka baxeen 400 booyadood 290 booyadood waxay u baxeen koonfurta iyo bariga Sanaag jiidaha bariga Sanaag ee anigu aan xildhibaanka u ahay biyahaasu xagga waxay u gaadheen Damala Xagare ilaa Didinka Sibaaye Armale jiida koonfurtana Awrbogeys bay u gaadheen iyo Xabaale Camaare soo galay ama media ka baxay oo tilmaamaya gaar ahaan beesha warsangeliya degmada Cerigabo oo la isku qaldaa beesha bariga Sanaag waxa weeyaan waa gobol gaar ah beesha warsangeli ee degmada Cerigabo jiid dheer oo ilaa Damala Xagare ah oo ilaa Xadeed ah oo ilaa iyo maxaa ku yiraahdaa Yube ilaa iyo Armale ilaa waa jiid aad u ballaaran ayaa biyaha wixii ay ka lahaayeen intoodii badnayd wayna soo gaadhay anigoo ku hadlaya afka bulshada iyo dadweynaha jiif caaqilkii gobolkana ah waxaan cadaynaynaa in biyaha xoogoodii ay soo gaadheen 100 oo booyadood oo degmada Cerigabo ay lahayd sida horeba ay u sheegeen xildhibaanada golaha deegaanka iyo maayarka degmadu 400 booyadood bay noqotay 400 booyadoodna waa la qaybiyay bariga iyo koonfurta Sanaag waxay heleen 190 booyadood 190 koodii booyadoodna way u socdaan meelihii loogu talagalayna waa gaadheen oo reer miyiga biyaha loogu talagalay oo deegaanada biyuhu tagayeen kamid ah oo metel kamid ah Shimbiraale iyo Dawaco maraguun baan anigu waxaan cadeynayaa oo dadkii biyuhu soo gaadheen oo reer miyiga ah oo dadka aad ugu baahannahay in sida ay xildhibaanka iyo nabadoonnada iyo odayaasha sheegayaan warku xaqiiqo yahay anagu waxaan ka yimid gudoomiyihii degmada Carmal aan ahay Cabdullaahi Axmed Jaamac waan soo gaadheen biyo waxaan uga mahadcelinaynaa waxa la alaali wixii soo gaarsiiyay oo ugu horeysay gudida abaaraha Jamhuuriyadda Soomaaliland golaha deegaanka Cerigabo ugu horeeyay gudoomiyuhu xildhibaanada dhammaan uga mahadcelinaynaa biyo waan soo gaadheen anigu waxaan ka yimid Damala Xagare waayelka Damala Xagare ka mid ahay biyahaas waan soo gaadheen dadkiina waa loo dhaaminayaa dhaamiskoodina waa socdaa gacanta lagu hayaa waxaan uga mahadcelinaynaa gudida abaaraha iyo gudida gobolka iyo cid kasta oo ka soo qayb qaadatay halka waxaan ku cadeynaynaa inay maayirka iyo xildhibaanadiisa iyo fulinta degmaduba biyihii degma Cerigabo soo gaadhay ka odayaal ahaan inay intii loogu talagalay 70% gaadheen Jaabir Saciid Cali Jaabir Bulshaawi Ariel TV Cerigabo